Muuqaalkan intaanan bilaabin, hoos kommentiga igu reeb waa imisa xawaaraha internetka. Jawaabtaada waan akhrin doonaa. Weli ma isweydiisay waxa laga wada ereygan 2G, 3G, 4G, 5G iyo waa maxay farqiga u dhexeeya? Maanta waxaan ku sharxi doonaa muuqaalkan kuna gorfayn doonaa mowduucan. Soo dhowow mar kaleeto. Aan ku bilowna xarafka kulligood ay wadaagaan ee ah G. Waa maxay micnaha xarafka G? Xarafka G wuxuu taagan yahay ereyga generation oo micnihiisu uu yahay jiil. Marka lagu leeyahay adeegga 5G, micno ahaan wuxuu noqonayaa tiknoolajiyadda jiilka shanaad ee wireless-ka ama aan fiilada lahayn. Tiknoolajiyadda caalamkan ayaa waxay soo martay marxalado kala duwan. Marxaladdii koowaad waxaa lagu magacaabaa 1G ilaa marxaladda aan hadda u joogno ee 4G ama jiilka afraad ee tiknoolajiyadda. Hadda waxaan filayaa waxaad fahantay waxa laga wada 3G, 4G iyo 5G. Marka xigta waxaan u gudbaynaa waa maxay farqiga u dhexeeya 1G, 2G, 3G, 4G iyo 5G. Su'aasha meesha taalla ayaa waxay tahay waa maxay waxa iska beddelaya tiknoolajiyadda? Dabcan waxa isbeddelaya waa speedka ama xawaaraha. Oo tusaale ahaan xawaaraha dhexdhexaadka ee adeegga 2G wuxuu ahaa 64 kilobyte, halka xawaaraha dhexdhexaadka ee 4G uu yahay 100 megabyte per second. Haddii kilobyte maaha ee waa megabyte. Dabcanna waa dareemi kartaa farqiga aadka u weyn ee u dhexeeya. Aan u imaana adeeggii dadkii wareeriyey marar badanna la hadal haayo ee 5G. Adeeggan wuxuu tartan ballaaran oo haddii jilbaha laisku haastay ka dhex dhaliyey Maraykanka iyo Shiinaha, oo mid walba wuxuu doonayay inuu asaga noqdo kan soo saara. Dabcanna labadooda kan adeeggan soo saara ayaa noqonaya quwadda tiknoolajiyadda cusub. Maraykanka sanado badan buu magaca sitay oo ah in uu yahay xoogweynta tiknoolajiyadda, mana doonayo in uu lumiyo title-kaas ama magacaas. Maraykanka wuxuu ahaa meeshii uu internetka ka soo baxay ama uu ka soo askumay ama ay ka soo askuntay fikradda internetka. Sidoo kalena waxaa Maraykanka ka soo baxay shirkadaha ugu caansan mareegtan internetka sida tan aad hadda iga daawanaysid ee YouTube, Google, Facebook, Instagram, WhatsApp iyo Twitter iyo kuwo kale oo badan. Haddii aad doonaysid in aad wax badan aad ka ogaatid sida uu internetka ku bilowday iyo sida uu nagu soo gaaray, waxaa jiray muuqaal aan ka sameeyey mowduucaas. Haddii aad danaynaysidna waxaan kuu soo dhigi doonaa kommentiga ugu horeeya ee muuqaalkan. Hana ilaawin inaad kanaalka subscribe saartid, aana gujisid danowga ag yaala si aad inoola jaanqaadid. Adeegga 5G ayaa xawaarihiisu wuxuu noqon doonaa mid aad uga xawaaro badan adeegyadii internetka ee ka horreeyey sida 4G, 3G iyo 2G. Sidoo kale waxaa maskaxda ku haysataa cidda adeeggan soo saarta waxay noqon doontaa cidda gacanta ku haysa xogta ama daatada 7 bilyan oo ruux oo dunidan ku nool. Dowladda Maraykanka ayaa doonaysa inay ayada ku horumarto soo saaridda adeeggan 5G, laakiin Shiinaha ayaa kaga hormartay. Shiinaha ayaa sheegtay in ay ku guuleysatay ka shaqaysiinta adeegga 5G, iyadoo ku guda jirta sidii ay dunida ku gaarsiin lahaayeen. Dadka qaar ayaa qabaan in dowladda Shiinaha aysan ahayn dowlad la aamini karo, laguna aamini karo xogta 7 bilyan oo ruux oo dunidan ku nool. Laakiin marka laga soo tago horumarkiisa iyo faa'iidadiisa, waxay saynis yahanada leeyihiin adeeggan wuxuu wataa dhibaato iyo khatar weyn. Waxaa la leeyahay adeeggan 5G radiation-kiisa ama ishcaacaadkiisa ayaa aad u badan. Saa daraaddeed uma roona nolosha aadamaha oo uu dhibaateyn karaa gaar ahaan carruurta yaryar iyo hooyooyinka uurka leh. Dowlado badan ayaa diideen inay adeeggan 5G ay isticmaalaan, ayagoo u sababayeen khatarta saa'idka
ee uu ku yahay nolosha bini'aadamka. Hadduu dhaqan gala adeegan, wuxuusan shaki ku jirin in dunidan ay isbeddeli doonto tin iyo ciribba, iskuna beddeli doonto duni wax kasta ay noqdaan wax ku xiran internetka.